runtii maanta waxay tahay sharaf aad u weyn inaan halkan kala soo qayb galo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo noogu yimid xil wareejintan oo aan si gaar ugu mahadcelinayo sababtoo waa markii saddexaad 2017 ilaa haddeer aan ku wada kulmayna xil wareejin xukuumaddan dowladdan cusub markay dhalatay xil wareejintii ugu horreysay uu noo sameeyey waxay ahayd anoo wasiirka dastuurka ah inaan xilka wareejiyo iyo markaan wasaaradda xanaanada xoolaha tegay 2018 iyo maanta oo 2021 aan la wareegayo wasaaradda howlaha guud marka mudane ra'iisul wasaare ku-xigeen waa ku mahadsantahay inaan nagala soo qayb gashay xafladan waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ii ogolaaday fursadan maanta ay siiyey inaan mar kale aan u adeego shacabkayga aan ugu adeego inaan mar kale ay u magacaabaan wasiir waxaan waliba anoo ka faa'iideysana mudane ra'iisul wasaare ku-xigeen fursadan si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo intii uu dowladdan madaxweynaha ka ahaa ay tahay markii saddexaad oo la ii magacaabo xil wasiirnimo marka waxaan leeyahay madaxweyne waa mahadsan tahay kalsoonida iyo fursadda aad i siisay inaan mar kale shacabkayga aan ugu adeego sidii horeba aan ugu adeegi jiray waxaan ballan qaadayaa dadaalkaygii iyo awoodeydii inaan sii kordhiyo oo horumar iyo sidii loogu gaari lahaa wasaaraddan cusubna aan kala shaqeeyo maanta waxay ii tahay fursad aad weyn oo farxadeed sababtoo ah muddadii aan ku soo jiray siyaasadda iyo dowlad u shaqeynta aan u adeegayay shacabkayga waxay ii tahay maanta markii 11aad ee la ii magacaabo xil wasiirnimo laga soo bilaabo dowladdii carta oo wasiirka maaliyadda ka ahaa ilaa maanta waa markii 11aad marka waxaan fursaddaas ciddii isiisana waa ugu mahadcelinayaan waxaana mar walba diyaar u ahay inaan shacabkayga ugu adeego wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa intii aan joogay waxaan aad ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud shaqaalihii joogay khubradii nagala qayb gashay la taliyaashii sidii ay ila shaqeeyeen runtii waxay muujiyeen dadaal dheeraad ah maadaama waqti adag lagu jiray shaqo badanna ay taashay waxaan xasuustaa mararka qaarkood inay shaqayn jireen waqtiyo ilaa iyo habeenkii xataa saacado dambe oo midnight aan ku gaari jirnay wasaaradda shaqo daraaddeed marka aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa wasiirka cusubna inay sidaas oo kale ula shaqeeyaan ay gacan buuxda siiyaan ku dheeraan maayo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa muddadii aan joogay khubaradaas uu hogaaminayay iyo shaqaalaha iyo agaasimayaasha waxyaha waxay gacan buuxda iga siiyeen sidii loo diyaarin lahaa mashaariicdii uu sheegay agaasimaha guud oo inaan dib ugu noqdo ma doonay intooda badan oo bangiga adduunka iyo bangiga Afrika iyo European Unionka intaba ay ka wada qayb qaateen ilaa iyo 5 mashruuc oo waaweyn oo intooda badanna u badan sidii loo kaalmeyn lahaa dadkeena reer guuraaga gaar ahaan dhibaatooyinka abaaraha ah mashaariicda qaarkood waxa ay ka kooban yihiin sidii magaalo walba oo Soomaaliya waxa ugu jirta in loo sameeyo water catchment oo markuu roobabka da'aan meelo waaweyn oo maartay baliyo waaweyn oo biyaha lagu kaydiyo waro waaweyn oo ahayn warooyinka yar yar dowlad goboleed kasta waxa loo sameeyaa mashaariicdaas ugu jirta in laba gaari oo gaari maartay clinical ah iyo gaari kale oo laboratory wata oo meel walba mobile gaari kara runtii mashaariicdaas waxaan rajaynayaa inay qayb weyn ka noqon doonaan mustaqbalka abaarahan soo noqonaya iyo environmental shocks-ka oo maartay mar walba dhibaato u keenaya reer guuraageen iyo xoolaheena inay wax weyn ka tari doonaan laga soo bilaabo 2018 ilaa maanta dhoofka xoolaha Soomaaliyeed kor ayuu u sii socday 2018 waxay noqotay 2,800,000 oo neef oo Soomaaliya ayaa dhooftay waxa ugu dambeysay sanadkii hore haddaan soo qaato 2020 3,100,000 ayaa dhooftay iyadoo aan ku jirin xoolihii maxaa la yiraahdaa xajka oo la socotaan coronavirus-kii jiray awgeed aan u suurtagelin in la dhoofiyo laakiin waxaan fursad u yeelanay muddo 30 sano gudahooda ah in aan diyaarino markii ugu horeysay in dowladda Sacuudiga oo ah dowladda ugu badan ee qaadata dhoofka xoolaha Soomaaliya ay u aadaan in aan la diyaarino barnaamij protocol ah caafimaadka xoolaha Soomaaliya permanently xoolaha Soomaaliya si joogto ah ay u dhoofayaan iyadoo oo aan jirin ilaa 30 sano markii xajka la gaaro baan naloo fasaxi jiray laakiin heshiiskaas oo dhamaaday markii ugu dambeysana wafdi aniga aan hogaaminay aan dowladda Sacuudiga ku tagnay wafdigaas waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda oo maanta fadhiya agaasimaha waaxda caafimaadka ka hortagga cudurrada
doctor qayliye oo khabiir ah iyo khabiir kaloo la taliyo oo arrimaha dhoofka xoolaha soomaaliya ku takhasusay shaqo fiican ay wafdigaas soo qabteen waxa ugu weynaa brotocoolkii gebi ahaanba in la isku soo wada raacay marka laga reebo hal qodob oo ahaa kaasna ay codsadeen ganacsatada oo markii hore ugu jiray cudur la yidhaahdo FMD oo ah cudur ku dhaca xoolaha oo markii hore ahaa in baaritaan lagu sameeyo xoolaha ganacsatada inaga codsadeen haddii cudurkaas baaritaan lagu sameeyo inay xoolaha dib u soo noqonayaan ayaan dowladda sacuudiga xataa dowladda suudaan oo weydiisatay ay ka diideen agaasimaha guuda markhaatiga jooga iyo agaasimayaashii waxyaha oo nala socday waxaan ka codsaday dowladda sacuudiga maadaama baahi badan ay dadkeena shacabka Soomaaliya u qabaan dhoofka xoolaha in cudurkaas naloogu bedelo baaritaanka naloogu bedelo tallaal naloogu bedelo qodobkaasna waa nalaga soo ogolaaday kaliya waxay nagu soo xireen qaabka tallaalka iyo noocu noqonayo inaan soo diyaarino muddo 2 toddobaad gudaheed aan soo diyaarino khubarada dadaal badan ay muujiyeen markaan safar ka soo noqonay oo agaasimaha guud uu hogaaminayo waa ay direen wasiir iyo ra'iisul wasaare ku xigeen raboorkii way direen wuxuu ku maqan yahay wasaaradda dowladda sacuudiga waxaan rajaynaynaa isbuucyada soo socda in si rasmi ah loo furo xoolaha Soomaaliya permanently oo sacuudiga oo sanadkii ugu yaraan 5 ilaa 6 milyan qaadan doonana ay heli doonaan xoolo dhaqatada Soomaaliyeed fursadaas inay ka faa'iideysan doonaan ma rabo inaan ku dheeraado wasaaraddan waa wasaarad ballaaran ku soo dhow wasiir waxaan rajaynayaa agaasimaha guud iyo tiimkiisa khubarada iyo agaasimayaasha guud sidii wanaagsaneyd ay ila soo shaqeeyeen inay ula shaqeeyaan wasiirka gacan buuxdana ay ka siiyaan runtii maanta waxaad arki jirtay sida badan Soomaaliya marka wasiir wasaaradda laga bedelo wasiirka cusub oo wasaaradda markuu tago wuxuu u tagay jiray wasaaradda wax badan ka maqan documentation sababtoo wasiirka baxa wuxuu la bixi jiray laptopkiisa iyo la taliyaasha la shaqeeya oo hore u sii qaadan jiray marka wasaaradda documenti oo yaa loo tagi jiray maanta way ka duwan tahay wasaaradda xanaanada xoolaha waxaad tagaysaa wasaarad mashruuc ha noqdo barnaamijka xoolo dhoofinta ee sacuudiga ha noqdo documentigiis waxaa gacanta ku haya agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waxya iyo la taliyaasha wasaaradda joogto wax aniga aan la tagayo wasaaradda aan kala baxayo ma jirto marka nasiib baad leedahay inaad hesho nidaam dowladeed anagoo kiigsanayna sidaas oo kale aan rajaynaynaa insha Allah wasaarad walbaba in loo dhaafo oo sidaas nidaamkaas dowladda lagu shaqeeyo oo dokumentiyada iyo khubarada gacanta laga saaro ay shaqada ku leeyihiin inay howlahooda qabsadaan aad iyo aad u mahadsantihiin cafi iyo masaamaxa iga tiin kuwan la soo shaqeeyay kuwa cusubna waxaan rajaynayaa iyagana inay gacan buuxda iga siiyaan sida ay wasiirku la soo shaqeeyeen wasiirkan waxaan u ballan qaadayaa maadaama howl badan oo wanaagsan uu ka soo qabtay wasaaraddan inaan meeshii uu joogtay aan ka sii wado oo meeshaasna aan ka sii galo